ضميرنا حب الشدة إنك كقبت لهين ضميرنا حب الشدة إنك كقبت لهين دلكي قواد حيا هاي تكون واد دالي هاي ضميرنا حب الشدة إنك كقبت لهين ضميرنا حب الشدة إنك كقبت لهين دانا يستأندرنا حين دانها أمتي ودلكبا دولاركا وبدلانا ياغا دفكو بحاد ولو بدها دفكو بحاد ولو بدها دانا يستأندرنا حين دانها أمتي ودلكبا دولاركا وبدلانا ياغا دفكو بحاد ولو بدها دفكو بحاد ولو بدها وكامي تعدوه قبيلة دديديو قبيلة دديديو تجي سومالي وين كانوا قدام تجي سومالي وين كانوا قدام وكامي تعدوه قبيلة دديديو قبيلة دديديو تجي سومالي وين كانوا قدام تجي سومالي وين كانوا قدام تربية كجدو كلي درحومة داشتية وقاقل له يا نيا درحومة داشتية وقاقل له يا نيا دريق يدا عرور تداتسن تربية قجدو كلي درحومة داشتية وقاقل له يا نيا درحومة داشتية وقاقل له يا نيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay dadkoodii la dahyacay barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay toddobaad weliba hadahayo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda Shabeelle mowjada FM 101.5 megahertz waxaana ku soo qaadanaa arrimaha ugu weyn toddobaadkaas ee sida weyn loo hadalhayo
toddobaadkan magaalada muqdisho waxaa ka bilowday howlgal dowladda federaalka soomaaliya ay ugu magac dartay xasilinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo deegaanada ku dhow ee ay ka mid tahay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. haddaba howlgalka ayaa bilowgiisa waxaa lagu soo bandhigay hub fara badan oo la sheegay in howlgalkaasi looga soo qabtay xaafado ka mida magaalada caasimadda ah ee muqdisho, waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in ciidamo gaar ah howlgalkaasi ay fulin doonaan si loo xaqiijiyo nabadgelyada muqdisho. haddaba howlgalkaasi xasilinta amniga muqdisho loogu magac daray ee dowladda hoose iyo saraakiisha ammaanka ee caasimadda ay ka wada qayb qaadanayaan muxuu ka bedeli karaa amni xumida muqdisho iyo deegaanada ku xeeran, sideese looga midho dhalin karaa? waxaana nala falanqayn doona saraakiil hore waxgarad iyo aqoon-yahano arrimaha ammaanka aada ugu dhuundaloola. waxaa ka mid ah dadka martida ah ee barnaamijka nagala qaybgalaya admiraal injineer khaliif idriis cismaan oo la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee soomaaliya, wax badanna kala socda arrimaha ammaanka iyo xaaladii ugu dambeeyey dalka. waxaa kaloo nagala qaybgalaya boqor nuur boqor maxamuud afrax oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed, aadna waqtiyo kala duwan ugu soo qaatay dalka, islamarkaana ka warqaba xaaladda dalka ee waqtiyadii hore iyo haatan farqiga u dhexeeya, iyo ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur oo ka mid a salaadiinta aad looga yaqaana geyga soomaaliya. saraakiil kale oo saraakiisha dowladda iminka ah iyo kuwo hore ayaan jecelnahay in qaybaha dhexe iyaguna ay nagala soo qayb galaan. anigoo jimcaala ayaa barnaamijka idin daadihinaya, injineer mustafa cabdi abshirna farsamada ayuu ka qaabeenayaa. dhegeystayaasha dowrkooda ayaan siin doonaa oo ay toos noogala jaan qaadayaan mawjadda FM 101.5 megahertz, aaladda facebooka oo barta aan ku leenahay Shabeelle Media Network ay toos aragtidooda uga soo dhiiban karaan, toosna ay nooga maqlayaan. waxaa kaloo ay naga dhegeysanayaan live streamka shabeellenews.com meel kasta oo dunida ay ka joogaan. waxaa sidoo kale aad ra'yigiina iyo aaraadiina ka soo dhiiban kartaan nambarka gaaban ee 488 ama telefoonka 851591. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay. qabyaalada diidayo dejiya Soomaali weyn, dejiya Soomaali weyn, waa tahay saaxiibayaal mar kale jimco wanaagsan. barnaamijka maxaa karuna wixii la sheegay ayaad la socotaan. ugu horreyn aan eego martida haddii ay qad ku jiraan. admiraal injineer khaliif idriis, waadna maqashaa? waa ku maqlayaa wax yar codka, laakiin waa igu gaaban yahay. saaxiibada igala qayb galaya codkooda waa igu gaaban yahay. waa tahay waan sixi doonaa. injineer khaliif idriis, waad la socotay dabcan howlgalka xasilinta muqdisho guud ahaan dalka, xaaladaha amni waa la socotaa. maxaa howlgalkan uu ku soo kordhin karaa xaaladaha amni ee dalka, gaar ahaan caasimadda oo hay-adaha dawladdu ay ku shaqeeyaan, oo ah isha ugu muhiimsan ku aadan in ammaankeeda la xaqiijiyo oo horay fadqalado xagga amniga ay uga jireen? bismillaahi raxmaani raxiim. waa salaamayaa idaacadda maamulkeeda iyo waxgaradka kale ugaasyada
iyo saraakiisha iyo aqoon-yahanada arrintan falaqaynaysa ee stuudiya hadda qadka igula jirto waa wada salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi maadadan sidee loo sugi karaa amniga waxbaa ka horeeyo waxa ka horeeyo horta waa inaan waxoogaa yaroo hordhacaan samaynayaa. dawladda ra-iisul wasaaraha xasan cabdi khayre waan maqlayay xalay idaacadda inuu tuuto gastay oo amni baa la sugayaa maaragtay sabjaga hadda taagan oo nala su-aalaya kamid ah. horta waxaa la rabaa maasha madax jiraa ma loo celiyaa dawladdu ma dal muslin ah oo dad muslin ah ayay dawlad u yihiin mase dad maaragtay qarbi ah. taas horta asaga in la su-aalo waa jeclaan lahaa. haddii dalka muslim oo u yahay ra-iisul wasaare dawladduna ay tahay dawlad shacab ousan asagu lahayn maqaayad laga shaqeeyana aynan ahayn, waxaan qabaa marka koowaad in dawladda maamul baa farsamo adeejiyo, ciidan waa farsamo, maamulka adeejinaya maamulna waa sharci. horta sharci dalka oo uu leeyahay ay soomaali sharcigeeda iyo amnigeeda ay ku sugato horta inuu la yimaado waa jeclaa lahaa. markii maadadan la su-aalo marka aan u dhaadhaco su-aasha jawaabteeda, dal sharciyaa tole dad ma tolo. dadka amnigana shacabkaa qabtee dawladu ma qabato. dawladu waa daraasaysaa bes sida loo qabanayo. dawladda markii hore waxay u muuqatay dawlad shacab, inkastoona sharcigu sharci shacab uusan ahayn ay ku fadhiyaan. marka la helo dal sharci qabanayo iyo dad sharci qabanayo oo sharci dalka iyo dadku ay leeyihiin la helo ayaa horta amni la sugi karaa. tasoo kale lama sugi karo sida ii muuqato, waayo nin baasaboor ajnabi ah wato, luqad 2 sana lagu bartaay, nin baasaboor ajnabi ah wato, sharciga dalka u yaalay rabaan inay ku dhaqaan dalka iyo dadkuba ma laha. marka asaga iyo ragga lamidka ah ama barlamaan ha ku jiraano ama asaga qolada kabineetka ha ahaadaano oo maaragtay xukuumadda ah, inta baasaboor ajnabi wadato dalka mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa midna ma sugi karaan. shacabka xoogiisa iyo aqoontiisana ma heli karaan sida ii muuqato. marka ayagaa u baahan inay farsamo hoose galaan, sharci dalka oo leeyaho dadku ku shaqeeyana inay la yimaadaan. nimanka baasaboorada ajnabiga wato oo afka soomaaliga ku hadlaayo ama barlamaan ku jiro ama wasaarada ku jiro ma in laga ama ay injineer khaliif annaga hadda sharci kama hadlayno yihiin dalka ka tagaan dadka yayna waalin khasaariyo dhib haddaan ku jirnaa dhib kale yayna geysan inaan qabaa anigu. waa tahay injineer khaliif mawduuca annagoo dhowrayna hadda anagu sharci kama hadlayno. xeeroosaadka ayaa u ogol dabcan dadka hadda xilalka ka haya dalka in ay xil ka qaban karaan dalka, balse midda aan ka hadlayno waxay tahay howlgalkan xasilinta loogu magac daray sida ammaanka in uu sugo ugu guulaysan karo ayaan ka hadlaynaa. ogaas maxamed weli ayaan siinayaa. ogaas maxamed weli, howlgalka xasilinta muxuu kusoo kordhin karaa caasimadda? halo, waa ku maqlaa ogaas maxamed weli. ha si fiican. haye sidaad u aragto howlgalka xasilinta? bismi illah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. ama bacdu, horta ilaahay subxaana watacaala ayaan ka baryaynaa inuu xasiliyo dalkan. dhib fara badan baa ka dhacay oo aada u adag. muxuu ahaa middan waxaan isleeyahay xasilinta iyo barnaamijka uu emeraalku ka hadlay muxuu ahaa waa kala duwan yihiin. haddaan wax yar hadalkiisii aan isiraaho aad wax ka saxdid, waxaan isleeyahay hadalkaa walaalkay waddankan dadkii horey u joogay oo runtii
anigu asaga ma garanaya laakiin anigu aan ka midka ahay ayaga ku noqday runtii dhib badan ka soo gaaray fursadda maanta qurba joogtu ay ku yimaadeenna waxaan isleeyahay qaybta koowaad dadkii horey u joogay baa iska lahaa aniga garashadayda fursad dadkii waddanka joogay ay lumiyeen ayay qurba joogtu ka faa'iidaysatay marka qofku inuu tabirxumadiisa iyo garashadaridiisa iyo asaga ceebihiisa iyo khaladka oo asagu galay inuu qofku fiiriyo oo uusan qof kala fiirinin waa wax sharciga iyo xadigu ay ogol yihiin marka taa haddaan intaa uga baxo waxaan leeyahay annaga ayaa fursadda bixinay annaga ayaa luminay annaga ayaa ku fashilanay inaan dadka iyagii hogaamino oo barnaamijkiisii aan isku afgaranno qurba joogna halkaasay ka faa'iidaysteen marka bal annagu horta aan isku noqonaan qabaa middaas middan kale waxaan isleeyahay magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaan qaraxyada oo dhacahaya iyo wax iska dhib badan oo dee londonba waad maqlaysay oo way ka dhacahayeen maraykankay ka dhacaan meelaha laleeyahay waa ugu amni badan yihiin caalamka ayay ka dhacaan laakiin waxyaabaha kale dadkan la dilahaya iyo waxaan iyo oo bastooladlayda ah waa la yarayn karaa bay ila tahay qaabka hadda looga hadlahayo haddii la yidhaahdo ha loo miisaamo oo si wax macno leh mar kasta waxaa meesha ka maqan tayadii ciidamada iyo dadka adeegaya garashadoodii iyo cilmigoodii iyo ammaanadoodii baan mar kasta lahaynin waxaa la rabaa qofka kaa soo horjeeda inaad u dhigmi karto marka la yidhaahdo waxa aad aaminsan tahay marka la yidhaahdo shaqada aad qabanayso marka la yidhaahdo ammaanadaada marka la yidhaahdo marka la yidhaahdo inaad u dhigmi kartaa loo baahan yahay oo awood ahaan iyo garasho ahaan iyo wuxuun aad isu miisaan tihiin runtii marka la yidhaahdo waxaad moodaa mar kasta waxbaa maqan dhinaca dawladda markii la yidhaahdo barnaamijkaasi wuxuu u baahan yahay in loo diyaargaroobo barnaamijkaa haddii loo diyaargaroobay waxaan isleeyahay qaraxyadan ilaahay baa yarayn kara waa la yarayn karaa haddii si fiican loo istaago qorshaha loo kaco midda labaadna barnaamijkan muxuu ahaa dastooladlayda iyo dadkan meelaha lagu dilayo qof malagii galay lama baajin karo laakiin waa laga hortegi karaayo ka hortag baa la samayn karaa ilaa iyo xad waxna un way dhacahayaano de waa wax jiro oo barnaamij hadda maanta iyo berri iyo beri dambe daba qoyi kara male laakiin aniga waxaan isleeyahay qaybta muxuu ahaa sugidda magaalada muqdisho waa suurtagal ama hadday tahay waddanka dhan baa laga qabanaya ma aaminsani qaabka hadda ay wax u qabanayaan ilama aha inay wax ku suurtageli karaan iyo degdega inay wax ku socon karaan waddanka dhana laakiin magaalada muqdisho waan isleeyahay haddii diyaargarow fiican la sameeyey oo dadku diyaarsan yihiin niyad ahaan taya ahaan ciidan ahaan garasho ahaan hadaf ahaan hadday diyaarsan yihiin waxaan isleeyahay waxbaa qabsoomi kara waxbaana la yarayn karaa isbeddel fiican baana muuqan kara insha allahu tacaala wax kastana allay ku xidhan yihiin allah waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay fududeeyo oo dhibka culayskiisa naga dulqaada ilaahay baan ka baryaynaa aniga sidaasay la tahay insha allah waa tahay boqor nuur aan siiya isaguna boqor nuur haye maxaa kaaga baxaya dabcan muqdisho oo nabadgelyo ah bersamaadkii waad usoo joogtay howlgalka xasilinta haatan loogu magac daray maxaa kaaga baxay bismi illaahi araxmaan iraxiim shabeelle iyo wariyaalkeeda iyo baahinta intaba waa u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ee dhibanna ilaahay waxaan leeyahay dhibka horta ha ka qaado waxaan ilaahay suurtagelin horta ma suurtagalaan markaan usoo laabto hadafkan isaga ah soomaalidu waxay tidhaahdaa gacantii daahira ayaa wax daahirida maantay waddankeenna kama jirto shaksi amni lagu aamini karo ee daahir ah ee dalkaa nabad ka dhali karaa ma jiro waxaad la socotaan dadka hadda maamulka haya iyo kuwii hore maamulka u hayay markay kala wareegayeen nin walbaa boorsado hore u qaatay
waxaad u qabtaa dadkaani dad soo shaqo tegay inay yihiin ee dad dalka u dhashay oo u shaqaynaya oo shacabka iyo dalka iyo diinta unaxaya inay yihiin uma malaydid waxaan dhicin oonan weligay maqal sanadkan ka hor meel heblaan ku duulaya ciidan howlgelaya oo laleeyahay meel hablow ku duulaya ciidan shaqo tegaya oo shaqadaas uu leeyahay warbaahinta laga sheegayo noloshaydii aniga sanadkan baa iigu horeyda dadka kani ma ahan dadkii ahalka u ahay inay waddankaa nabadda ka dejiyaan waxaad la socotaan markaan dib u laabano midowgii maxaakiimta muqdisho waa kala xirxireed gobol gobolay u kala xirreed tuule tuulay u kala xirreed xaafad xaafaday u kala xirreed rag aamina oo isdhaarsaday oo ilaahay kitaabkiisa isu maray oo barnaamijkaas qaatay ayaa ka howlgalay hal maalinayna ku xoreeyeen xamar oo dhan way ogtiisa ay isu furfureen shaksigu markuu daacad yahay allana ku xiran yahay oo daacaddii ilaahay ou haysto ayuu horta wax daahirin karaa dadka kani daahir ma ahan aniga shaksiyan sida aan leeyahay galabta ninkii xilka laga qaado berri diyaaradou saaran yahay walaalkii baasaboorada ka hadlay ayaan ku raacsana dadku jismiga soomaali waa ka yihiin laakiin qalbiga kama ahan way soo shaqo tageen waxaan u jeedaa in ay kasii shaqaynayaan burbur soomaaliyeed ooyan daacadnaba jirin hadi labada gole hadday yihiin fulinta macal baarlamanka runtaan isu sheegaynaa in la leexleexdaa xaaraan wey nin soo shaqo tegay oo yidhi halay doorto hala ii dhiibo waddankan xil kama qaban karo mana fulin karo waxaa kaloon leeyahay ciidamada ciidan sirtiisa oo qarsoonaa jirtay isagoo caawa shaqogelaya oo raba inuu magaalo qabto ayaa maqribkii ciidanka ninka u sarreeya oo wan ogaa jirin calooshooda banaankay taallaa meesha ay ku duulayaana warbixintu sii taallaa waa soo duulaynaa war nooga sii bax waayo meeshu marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed yaan la hodin yaan been loo sheegin maamul dhalin kara nabadi kama jiro muqdisho iyo soomaaliya toona ummad ilaahayda waayo ummad yani ku kalsoon allaha subxaanahu watacaala wey laakiin kuwan sheeganaya maamulka maamul ma ahan mana noqon doonin sirtoodu banaankay taallaa xaafiiskaa looga shaqaynaya xaafiiskiisa waxaa yaalla qabiil ina hebel ii qor asagaan sirta ku qarsanaya waryaada aan run isu sheegno ilaahayna aan ka cabsano soomaaliya ciidan bay leedahay sidee lagu sugi karaa adiga aad aaminsan tahay raggii nabadda dhalilah gidaaraday fadhiyaan shaqo looma diro waa mutaqaacid gebigood looma ogola dalkooda inay ka shaqaystaan kuwii xabadda wax ku bartay inay dalkii ka shaqaystaan looma ogola kuwii wax ku noqdo ku naafoogay inay ka shaqeeyaan looma ogola dadkii nabadda dhalin lahayd koraa looga haystaa gacanta koraa looga haystaa dadku meel codlahay taageeraan meel codlaa lama taageeri karo beniya laisu sheegi adigu sidee aad ku talinaysaa oo loogu guulaysan karaa xasilinta ammaanka maadaama amniga la sheego inay tahay maadada ugu muhiimsan ee aasaasiga u ah in la helo horumar la helo dawlad wanaag adigu maxaad aaminsan tahay oo wax ay ku suura geli karaan waxaan aaminsanahay dalka dadaas 30 sano xabadi dushooda ka dhacay xaquuq ku leh fahamsan dhinaca laga xigo fahamsan qaabkay wax u maamuli karaan fahamsan qaabkay u deji karaan ha lagala tashto saraakiishii Soomaaliya gidaarada baalka la yiraahdo ay gacanta taaganayaan ha loo yeero ha la fariisiyo ha la yiraahdo maxaanu yeelnaa talada ayaga ha loo dhiibo ha looga dambeeyo warku kaas weeye 10 saacadood habeenimo dheelmanayaan ayuu cidna u sheegin alarmiga u yeerinaya meesha ku duulayaan ayaga yaqaana meesha ku qobayaan ayaga yaqaana laakiin waxaan shacabkii dhex daadanayo oo berri meelabla lagu duulaya berri meelabla loo fiirso ilaahay baan kugu daariyay waxa la yiri berrito ra'iisul wasaaruhu wuxuu tagi doonaa Baldogle maxaa ka qusaya shacab in loo sii sheego waa sir ciidan waa sir dawladeed madaxweynuhu asoo inuu ka dago goobta iyadoo laga sii warbixina loo baahan yahay inaan runtaan isu sheegnayaan yaan ummadda la qaribin ilaahay weynaayo waaxid ahay ayaa badbaadin kara kuwa kani kuwii badbaadi lahay ma ahan xalayaa u dambayday waxaan dhegaysanaya gaarigii ugu dambeeyey oo isku warxiyey dekeda inay yidhaahdeen booliisku
waxaa loo waday ardadii aan waardiyeynaynay oo waanu aragnay oo taargadiisaan aragnay war maa la qabto haddii run la sheegayo dawladda dhexdeeda ay ka jirtaa qarafku ka socdaan hawnaya anugu waa tahay waxaan ku laabanayaa admiraal injineer khaliif idris injineer khaliif idris maadaama aad tahay qabiir hore oo arrimaha amnigana aada ugu dhuundaloola maxay kula tahay oo loogu guulaysan karaa loogana midho dhalin karaa howlgalkan xasilinta amniga muqdisho loogu magac daray iyo wakti dhumo iyo saacado minidyaah oo boqorada iyo ugaasyada iyo saraakiisha aan ka mid tahay horta lagu lugooyo ma jecli waa maalin jimca oo maalin cibaadaha waaye war hadduu nacfi iyo nuxur leeyahay waxa ka hadlay boqor nuura ka hadlay ugaas maxamed weli la yidhaahdana waxaan u malaynayaa kuwa kan xumbada aan dalka lugaha iyo qoorta isaga xirayo ugaasyadii saxiixay inuu ka mid yahay warkiisaan ka dadaminayey taas horta xagga ii dhig waxaan kuu sheegayaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa meeshuu madax jiro ayaa majal loo celiyaa war hadduu qurux leeyahay iyo hadduu caqiide iyo iimaan iyo diin leeyahay iyo haddii luqad la wada fahmayo oo soomaaliyeed ama soomaalinimo ay ku jirto waxaa ku hadlay boqor nuura ku hadlay khayr allah siiyo waxaa ii muuqata waddanka qalbigiisa weli inuusan dhiman oo rag nool yahay weli waayo ilaahay baaba ummadiisa kala saro dhigay kala cilmi iyo aqoon kala duway kala midab duway alxamdulilah rag caynkaasa oo kale hadday ku jiraan dalka waxay ii muuqata inaan weli rajo leynahay waa ko siyow saan kuu sheegay dad ma tolo dal waxa tolo waa sharci dadku waa dhimanaya waana dhalanaya dhimashadooda iyo dhalashadoodana allihii weynaayo subxaana qaadir ahaa ayaa leh annaga malihin ninka hadli karana malaha allay u qorantaa taas dal sharci baa tolo meesha sharci ma yaallo hal shayga aan ku soo aruurina oo aniga hadda khaliif ahaan aan qaadanayo sharci native ah oo located ah ouna qarbi shuqul ku lahayn wuxuu yaallaa puntland ama somaliland 3 golaa dhisan waa sharci wadaniyadeed community share responsibilitygana waa sida bulshada iyo xoolaha daaqa isma dilina annagoo nasab iyo nikaax iyo casame iyo duriyad iyo diin wadaago ayaynu isdilnay sharciga maamuladaas da'doodu weyn tahay oo hore usoo shaqaynaya waa lagu badbaaday ummadu waa ku badbaaday soomaali lama kala faquuqin soomaali looma kala abtirin qaryadii meel joogtaba nabad bay ku heleen kuwaan xamar joogo oo 329 nin ah dalka dad uma hayaan aqoon uma hayaan amni uma hayaan caqiide islaamna uma hayaan weliba xogta hoose waxaan hayaa Somali Christian minority inay ku jirto qaaradda America ninka ka yimid iyo ninka qaaradda Yurub ka yimid iyo ninka Aasiya ka yimid iyo ninka gobolada dariska wariya Uganda aniga maxaduudaan wadaaga mid bad iyo mid cir iyo mid dhulmiyaan wadaaga tobanima Ugandesa ku jirto baarlamaanka Soomaaliya Kenya dal Soomaali 63 Ingiriis u dhiibay haysta waxay umada ku dhigayso waan aragnaa Ethiopia waa la soconaa Soomaaliya 3 loo dhigay 2 ku nool maxmiyad ayay ku jiraan oo dadka codkooda iyo maskaxdooda u madax banaan ma aha waxaan ku leeyahay jeedaha iyo xoolaha una isma dilin annagoo nasab iyo nikaax wadaagnaa isdilnay Soomaaliya uma eka ummadda konton iyo 5 dal oo Afrika lagu sheego ee u dambeysay gobolkan Jubbo hadda halaagu ka taagan yahay u dambeysay ka mid ma aha Soomaaliya way ka fiiga duwan tahay way ka duwan tahay marka waxaan qabaa dal sharci oo leeyahay in loo jagleelo waa ku maqlaa Ugaas Maxamed weli haye amnigiisa lama helayo waa sida weli ma maqal waa tahay Ugaas Maxamed weli haye maxaa kaga baxaya ala Ugaas Maxamed weli waa la hadlo hadda sugaya haye ku dagaal ala Ugaas Maxamed weli hello Ugaas Maxamed weli mana maqashaa
waata waas maxamed weli adiga ra'yigaada ku aadan sida loo xasilin karo caasimadda marka laga soo tago dhaliilaha jira oo u baahan toosin sida saraakiishii hore qaarkood ay sheegayaan ku aadan in aan la howlgelin dadkii khibradda u lahaa ammaanka oo saraakiishii hore ee dowladda dhexe la soo shaqeeyey kuna guulaystay xaqiijinta amniga guud ee dalka in tala la siiyo la howlgeliyo maadaama hadda ay aanu qayb ka ahayn habka ay wax u socdaan talana aysan ku lahayn haye bismillah horta ilaahay subxaana watacaala maaragtay ummaddan dhibkaa ka dulqaado aniga waxaa soomaalidu markay wada hadashaba waa iska soo muuqdaan oo dadku 20 iyo dhowrkii sane ama sano waxaanu ku noqonnay khabiir qofku meeshuu u socdiyo meeshuu ka hadlayo horta ay barnaamijkana isku raaceen wax hadda laga hadlayay oo meesha yaalla ma jiraan marka laga reebo muxuu ahaa arrin yar oo aan geli doono soomaalidu waxay tidhaahdaa markii geel loo heeso bay goroyo u heestaa baa la yidhi waxaa laga hadlayay magaalada muqdisho amnigeeda barnaamijkan hadda la galayna waxa weeye waa xildhibaanadii iyo dawladdii iyo barnaamijkeedii iyo dawladdaanna hadda wax ka baxsan mawduuca annagu ma doonayno in aan sii falanqayno waana ka codsanaynaa mas-uuliyiinta qadka nagula jira in aysan mawduuca ka bixin oo mawduuca un ay muhiimadda ka egaan haye wixii aan ka hadlaynay waxaan ahayn baa laga hadlayaa ani waxaan isleeyahay walaalaha meesha ku jira waa niman meel kale u socda oo waxa ayagu ay ka sheekaynayaan ay leeyihiin waxaasaa jira ayaga naftoodaaba wadaba aniga waxaad igu wargeliseen magaalada muqdisho amnigeeda qaabkii loo xasilin lahaa ma sax baa hadda sida loo wada mise ma aha markii aan sida caqliga iyo sharciguba waxbay ogol yihiin waxa la ogol yahay waxa weeye waxa marka aad ka hadlayso inta garashadaadu la egtahay inaad ka gasho adiga oo aan ikhtilaadna samaynin wax kalena aan kharibin wax kalena aan ku dhex darin dad kalena aan u gefin annaga baarlamaanka maanaan soo dooranin dastuur soomaaliyeedna maanaan qurin halkaana nalooguma keenin waxaan qabaa barnaamijyada hadduu borogaraamka ku jirayna markii hore waa noo qariseen hadduuna ku jirinna inaan ku ekaano waxa aan ka hadlayno sida ummaddana aan ugu faa'iidayno annaguna faa'iidaysano ilaan dooda waxaa la yidhaahdaa dooda labaa loo kala qaadaa waxaa la yidhaahdaa mid wax dhista iyo mid wax dumisaa la yidhaahdaa ama dood wax hagaajisa iyo dood madhalaysa labadaasaa loo kala qaadaa marka waxaan ka codsanayaa walaalaha wixii aad qabtaan oo idinka gooni idiina intaad naga daysaan ummad baana dhegaysanaysa wakti baan dhuminaynaa inaan ummadda u faa'iidayno waxaynu ka duulanahay noqoto dawladda ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha oo 2 bilood jirta iyo madaxweynaha oo 4 bilood jira wixii soomaaliya soo jirtay saraakiisha uu sheegayo walaalkay boqorku xaggay ku maqnaayeen saraakiishu nimankii soomaaliya burburiyey weeye soomaaliya waxaa burburiyey ciidankii soomaaliya waad ogsoon tahay yaa hogaaminayey wasiiradeedii iyo saraakiisheedii SNM yaa hogaaminayey UNC yaa hogaaminayey haddii SLM yaa hogaaminayey SBM yaa hogaaminayey SNS yaa hogaaminayey janamadii soomaaliya wasiiradii soomaaliya yaa hogaaminayey meeshaasi waxba ma jirin hadday wax jiraan kuwii ciidanka aad ka sheekaynaysaay waxay qaban lahaayeen soomaaliya dhibkaa nimankii u horseeday weeye kow oo derbiyada fadhiyood sheegayso derbiyada waxaa fadhiyey cuqubooyinkii ayagoo ay sameeyeen ay ummaddan ka galeen bay derbiga la fadhiyaan xalna laga sugi maayo cabdiqaasim baa yimid waan garanaynaa barnaamijkiisa meeshuu ku dambeeyey cabdullaahi yuusuf oo xabashi wataa yimid meeshuu ku dambeeyey waan garanaynaa maxkamadihii baa yimid waa loo diiday oo waa laga daadiyey oo looma ogolo oo barnaamijkaan la ogolayn weeye waxaa ka dambeeyey ninka la yidhaahdo shariif baa ka dambeeyey waan garanaynaa meeshuu ku dambeeyey barnaamijkiisii waxaa ka dambeeyey ninka la yidhaha xasan meeshuu ku dambeeyey waa garanaynaa waxaan qabaa taariikhda yaanaan luminin oo aanaan hallaynine waxaan naga hallaabay annagaa iska luminay hadduu nin derbi fadhiyo iyo hadduu midgeed saaran yahay meelna looga yimid ma jiraan annagaa iska luminay waxay ku fiican tahay inaan ku soo laabanno barnaamijka taagan oo hadda taagan inaan ku soo laabanno idinkuna maydaan keenin nimanka qurbaha ka yimid aniguna maana keenin dastuurkana ma samaynin hadalkaaga iyo hadalkayguna inay intay israacaan meel wajahaan baa loo baahan yahay
waxaan qabaa yaanaan eed geline waxa halku ku iman kara inaan galno anigu waxaan isleeyahay arrinta militariga iyo u taalla muxuu ahaa ciidanka amniga sida boqorku sheegay meesha aan ka waafaqsanayo waxaa weeye sir inay lahaadaan oo sirtoodu aynan banaanka u bixin ayagu intay hawsha ka gelayaan waa wax saxa laakiin barnaamijka ah in waxyaabo kale wax loo tiiriyaay arrintaasi waa arrin weyn weeye arrin fududna maaha waana arrin meel kale loo socdo waxaan leeyahay meelaha kale naga daaya amniga xamar baa sii soo haray amniga xamar waxaan leeyahay dawladda hadda waxa ay wado fursad ha la siiyo waxaanu ka jawaabi karnaa markay ciidankaasi hawl galaan oo ay bil shaqeeyaan oo 2 bilood shaqeeyaan ayaa la dhihi karaa magaalada muqdisho nimanka ka shaqaynaya wax isbedelaha yimid amnigii waxbaa iska bedelay dhaqankii waxbaa iska bedelay qaabkii wax loo qaban jiray waxbaa iska bedelay arrintu way soo socotaa way soo fiicnaanaysaa hadday wanaagsan tahay hadday sii wadana way wanaagsanaanaysaa anu waxaan isleeyahay markaasaa la dhihi karaa amaa hadda in qori laga hor tuuro iyo in tashaa'um la sameeyo carabiga waxaa lagu yidhaahdaa malaha xun iyo malaha wanaagsan baa la kala yidhaha af soomaaliga tashaa'um iyo tafaa'ul baa la kala yidhaha tafaa'ul xasan iyo tashaa'um oo xun weeye marka ani waxaan isleeyahay tashaa'umka intaan ka dayno xumaanta tafaa'ul xasan oo wanaagsan aan samayno oo ha la yidhaahdo war waxaasaa hallaysane halkaana waxaan laga sheegi karin baa jira ninkii wax hallaysan oo weyn ka warqaba ha dawladdii waa joogtaaye hoos ha ula taliyo ninkii xilligii la eedayn lahaa oo wax laga sheegi lahaana maysan gaarin fursad ha la siiyo haddii hadaayada lafaheeda loo socdo sidii hore oo aan ugu soo ordi jirnay inaan ugu orodnana waa meesheeda laakiin xilligii la dagaali lahaa iyo xilligii wax laga sheegi lahaa midna maysan gaarin dadkan dibadaha ka yimidna idinkuna jifaatiin anna jifaanahay dadkan dibadaha ka yimidna jifadiinni baa ku jira kuwaygii baa ku jira adiguna maala keensan aniguna maana keensan dalka iyo dadkuna wax ku leeyahay waxaanan qabaa fursadda qurbaha nimanka ka soo orday annagaa bixinay annaga gudaha joognaa bixinay fursaddaas mar haddaan annagu ku guul daraysanay cabdiqaasim yaa naga hortaagnaa nin soomaaliyeed buu ahaa nin wadani uu ahaa nimaan etoobiyaan rabin buu ahaa nimaan ugandays rabin buu ahaa nimaan kenyaan rabin buu ahaa maxaa loo taageeri waayey maxaa loo garab istaagi waayey maxaanu u noqon weynay dawlad jirto soo baxdo shacabka iyagu intay garbaha ay qabsadaan maxay u garab istaagi waayeen aniga waxaan qabaa cuqubooyinkii aan gelaynay laga soo bilaabo maalintii dawladdu dhalatay ilaa maanta baana haysta ja'daas iyo meelaha derbiyadoo la garaacayana waxba kama imanayaan anigu waxaan qabaa caqli saliima intii lagu fikiro qofkii wax qabanayana in lala qabto qofkii aan wax qabanayninna fursad in la siiyo si aan u ogaano oo aanaan u kala harin aduu in adeerkaabaa daba socotaa waad sheegtay kan kale in adeerkii aniga in adeerkay in adeerkay in adeerkay anu waxaan qabaa in adeernimada intaan iska dayno oon qof in adeer loo weerarin qofka fursad aan siino saddexdeenna oo isla soconno maanta haddaan meel wajahno waxbaan ka keeni karnaa laakiin waa goorma waa markaan ku qanacsannahay goormaan ku qanci karnaa waxaan ku qanci karnaa inaan isla qirno inaan fursad bixinay sanad baan bixinay 6 bilood baan bixinay sanad iyo bar baan bixinay yaynaan kala harin aniga waxaan qabaa ummadda soomaaliyeed say jifo iyo dana gaara iyo urur iyo qabyaalad ugu kala haraysa bay halkaan fadhiisatay waxaan qabaa annagoo isla soconna qofkan shaqada loo dhiibay aan ugu kaadino war haye maxaad qabanaysaa waxaas iyo waxaas iyo waxaas aan u kaadino sanad waxaa lagu garan karaa meesha loo socdo sanad iyo bar waxaa lagu garan karaa meesha la gaarahayo 2 sano waxaa lagu garan karaa waxa la qabtay iyo waxa aan la qaban aniga waxaan qabaa amniga dawladda ay hadda bilaabeen oo magaalada muqdisho fursad aan siino 2 bilood ha la siiyo 3 bilood ha la siiyo dawladda ku soo dawladdu hadday tahay qurbe iyo hadday dibad tahayba dawlad Soomaaliyeed weeye ha la siiyo fursad oo ha laga warjigo ha la yiraahdo ilaa waqti hebel aanu kaadin xilliga wax ku cadaan karaanna waan garanaynaa hal sana ugu yar xilliga wax ku cadaan karaan aan siino anigu waxaan qabaa markaa kadib aan wajahno meeshii daliil ay leedahay iyo wixii wax ka jiraan laakiin haddaan budka soo qaadano qofkii oon dhaqaaqin oo madaxa laga jabsho oo lugaha laga jabsho oo gacanta laga jabsho oo la yidhaahdo xageed fadhidaa de meeshaas fadhida annagaa waa kuu jeednaa adigaana fariisiyey wixii hore oonu isku burburinay nimaya waan ka gudubna ururo ma shaqaynayaan qabyaalad ma shaqaynayso waa noo soo shaqayn weyday dana gooniya ma shaqaynayaan waxaas macallin baynu ku soo noqonnay waxaa la rabaa inaan ka gudubno dalkaanina ciidan ma lahayn hadda kadib baa la rabaa ciidanka wixii hore oo sii joogay in la hagaajiyo wax kalena la dhiso ciidan horena ma jirin marka aniga waxaan isleeyahay walaalahay ku soo dhawaaday idinkoo raalli ah wixii maaragtay hadalahoo inuu kulul yahay aad u malaysan idinkoo ka raalli ah shacabka soomaaliyeedna aan ka raalli gelinayo war midnimo iyo wadajir iyo wax wada wanaajin baa nala gudboon maanta qof annagoo isku duuban
waxaana innagaa isla wada leh yaanaan kala daadino wixii horey u jiri jirayna aan meel iska dhigno wixii wax naga hadlaynayana aan ka wada hortagno dawladdaana fursad hala siiyo anigu intaasaan leeyahay amnigeeda labadaba waa tahay boqor nuur in howlgalka fursad la siiyo oo wixii uu la yimaado uu kusoo kordhiyay nabadgelyada loo sugaa haddii aan lagu biirinayn talooyin iyo qorshooyin waxgal ah maxaa adiga ay kula tahay inaadeer horta waxa weeye waxa aan ka hadalnay aan isu sheegno waxa weeye anigu howlgalka kama soo horjeedo laakiin aniga hadda kula hadlaya xalay 3 saaba waxaa la ii sheegay xaafadayda in lagu soo socdo waa sir la-aan ciidan waxa anigu aan ka hadlayaa waxa weeye raggii sirtaa u tababaray oo aqoonta u lahay oo walaalkay oo dafiray waxa weeye waxay yaaliin guryahooday joogaan gidaaraday fadhiyaan dad aan u tababarayn oo qabiil lagu keenay oo in hebel iyo qor lagu keenay ayaa loo dhiibay ciidankii dadkii aqoonta u lahay wax yar ayaa kala socda ma jiraan haba yaraatee nin la socda waa faraku-tiris weeye ma dhamma ragga hoggaanka hayaa ma dhamma 200 oo nin marka ciidanka dhan in ciidan gaara loo samaynayo yaa dadka u sheegay waa khalad in loo sheego in baad saacada la howlgelayo yaa dadka u sheegay maamulka dhexdiisa ka timid waa khalad waxa weeye waxa loo baahan yahay in la ogaado xabadda rasaasta ee dhacday xaggee ka dhacday yaa sariday inay timaado yaa keeni kara dad sirtoodu qarsoontaa keeni kara shacabku waa u helan yahay nabad waa rabaan laakiin waxa weeye nabad kuma imaanayso barya kuma timaado waxay ku timaadaa systemkiina walaalaha xukunka ku fadhiyaa ma hayaan baan leeyahay waa baal marsan yihiin dib heesu xisaabiyeen heesi saxeen baan leeyahay anigu mucaarad maahay mana noqon doono runtaan idiin sheegaya muwaadin dhalay baan ahay ciidaydaan ku dhimanaya kuna dhaqanaya haddii alluhu yidhaahdo inta noloshayda ka hartay laakiin saan waxa weeye dal iyo dad laguma maamulo waa awal shay waa in la helaa sir qarsoon oo xafiiska ka soo baxda oo sir ciidana oo sir dawladeeda waxa weeye in wax walba banaanka yaaliin oo wiilo yaryaroo la qolay inta hoteelada noogu yimaadiin maqaayada aydan beri saasaa la samaynaya sax ma aha baloogaada tan kale nabadda yaa ka shaqeeya shacabkaa ka shaqeeya shacabkii ma la arkaan dawlad uma jeedaan waxaa shal markhaati aan noqday oo shaahid noqday shaksi bajaaj wata in bahalka la yidhaaha $1 lagu dilay oo dawladdu ku dishay meesha hadda dawlad xugun oo ku dilay ciidan ma loo soo carraa mase waa laga carraa waa loo soo carraa maanta waa laga carraya maxaa keenay inay iyagu cunaan dadkiiyaa keentay runta inaan haddaan runta la sheegin waxa la sheegaa waa been walaalayaal waxa weeye wadanka kan wuxuu u baahan yahay muwaadin kelmadda muwaadinka la yidhaahdaana waa qaali waxa weeye ciidda adaa ku dhashay dal shisheeye waxba kuuma noqonayo dadka hadda walaalkay oo ka hadlayo oo anigu aan carabka ku taaftay way jiraan maxaa loo waayey maamulkii hadda iyaga ka waayey ka horreeyey ilaa tabeel lay bedeleen ba u firto ilaa tabeel hal nin oo la yidhaahdo ninkaasi shaqadiisa waa ku urxoonaay inuu sii shaqeeyo amaalmarin oo la dalacsiyo maxaa loo waayey waa xisbi kicinaya waxa weeya wadankaa noola uma hayo runta aan sheegno si aanaan leexleexanin anigu xukuumaddan amnigan ka rabaa mooyaane kama rabo haba yaraatee xafiiskeeda hal warqad ugama baahni runtaan idiin sheegaya una aadi maayo laakiin waxaan rabaa amni aan ku noolaadaan rabaa oo sax ah qofka shaqaystay oo ummadda u shaqeeyey waa in la amaal mariya oo amaalmarinteeda laakiin kulligood waa tirtir war gabdhihii dhulka xaaqayaa la bedelo ma runtaan sheegaynaa mise been baan sheegnaa walaalayaal arrimaha mawduuca ka baxsan boqor aan ka gaabsano mawduuca aan ka hadlayno waa amniga mawduucaas un ku ekaaw shabeelle may maqlaysaa waa ku maqlaa injineer idris haye idaacadda shabeelle injineer khaliif waa ku maqlaa horta miyo meel masaajida ama meel maqaayada kama wada hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa waa media waay haye miidiyahana waxa waaye dadka bini aadamka ilaahay 3 ba u abuuray in maskaxdoodu waxbay kaydisaa waxna way inna maskaxdoodu waxbay urisaa sayna way leedahay inna maskaxdoodu waxna ma kaydiso waxna ma uriso indhaha iyo dhegaha waxay ku qaadaan ayay maaragtay ayaa u aqliya garasho ah 3 qaanadood oo bini aadamka u samaysan yahay horta
ugaaska annagu oryantamiinta iyo hanuunin meesha uma fadhina daraasad dhab ah oo dalkan iyo dadkan sidii lagu dhaqi lahaa ama amnigiisa loo sugi lahaa ayaynu ka hadlayno su-aasha meesha u fadhina ay tahay on waxaad moodaa ugaaska marka aan leeyahay waxa kan wixii dhisay oo dal iyo dad iyo diin midna ayna lahayn buu ka mid yahay marka aan leeyahay afkiisa ayaan ka helay xaqiiqda dhabta ah waayo nin umulo doox ah oo maate iyo maris laayay iyo nin ugaas aha gaal gar u qaybiyey aan luqad iyo diin iyo dhaqan midna aan la lahayn eeldooreeday ka dhacday camaray hadda ka dhacday waxaasoo dhan waa wax dhacay marka ugaasyada caynkaas ah inay maanta annaga hanuunin noo sheegaan ma aha waxaan hadda ka maqan oo isaga carabkiisa markaan dib u raaco aan fiirsho danabka jirkiisa ku jiro organka jirkiisa ku jiro oo qodax hadday ciribta ka muddo maskaxda oo xanuunkeeda ka dareemaya inuusan dareenkeedaba lahayn baa ii muuqata horta marka wuxuu la mid yahay kuwii soo dhisay 75 qodob oo Somali Christian minority ay ku jirto kuwii soo dhisan oo kuwa hadda joogana xidxidanaya ayuu u egyahay horta warkiisa dhan baan dhegaysanayay waana tifafsinayay intaas kow saacadayga dhimida awaas waa sidoo kale waddanka ku badan wixii waxaan dhisayna waa hadday wanaag leedahayna wuu helayaa hadday xumaan leedahayna wuu helayaa mid adduunya mid aakhirana wuu ku helayaa waxaa soo haray midaan aad noogu yeedtay arrintu waa farsamo iyo maamul labadaana maamul baa sarreeyo maamul wuxuu daraaseeyo oo maaragtay farsamo u diraa ciidan iyo qaali waa farsamo marka maamulka aan fiirsho golaha oo hadda talinayo iyo mid barlamaanka ma aha mid daraasadiisu ay dhamaystiran tahay oo shacabka dadka vulneraabilka oo intaalka yar oo birimegeydada oo shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo iyo midka bartasimeedka ah ama madagta oo agrigeedka ama dhaqaale ama aqoon maadiya ama mid diimeed ama mid istaraatiijiye yaqaano mid la adeegaya ama la falgalayo uma muuqdaan hadday tahay barlamaan oo lidisimeeda iyo hadday tahay fulinba waxaan ka hadlaynaa waa sharciga markuu fadhiisto ama cultural constitution la qaad ama islaamic ahkaamig la qaad oo dalka iyo dhaqanka iyo waraad dad kuwa caabuda kuwa ka xun male waa manduusi dadka ninka caabuda dadkaas sidii loo caabudi lahay oo hadafka sharcigiisa uu ku qaataa waxaan ka hadlaynaa horta ugaasku hagan in orbitka ka baxay kana baxay tobiga la isweydiinayo wey waxaan leeyahay haddii idin yar ay ku jirato zayla ninka joogo Soomaaliyeed waa jiraya ninka Kulundi South West Raskamboni joogana wuu jiraya ninka Elwaqiya Elqaalow joogo waa jiraya waa idin yar hadday ku jirato magaalada Xamar ama ay ku jirato Boosaaso ama ay ku jirato Awdal iyo Baki ama ay ku jirato Kismaayo Soomaali waa dun waay sida falkada ay u torontahay shacabka guurtada ana laga xukumaa nin guurta u danayna iyo sharci u danayna ma jiro local NGO iyo dawlad NGO ku fadhiso oo Somali Christian minority ciidan Soomaaliyeed ma adeegi karaan kow way boqorka caday injineer Khaliif mawduucan isla dhowrna mawduuc iyo kaba buuda iyo tuuta ciidan ma ciidan waxa weeye marka loo daadega dhabta reality adigu saraakiisha wax barataan kamid ah kadeenikada waliba neeya ayaan kamid ah dadal xambaara waxaan idin sheegayaa marka arrin farsamo ciidan meesha ma taal waayo nin baahan ninkii wax siiso u adeegaya arrimaha horta dawladeed midda ciidan maanta ka wada hadli mayno wuxuu ciidanka Soomaaliya yahay waan aragnaa oo been isku sheegi mayno midda labaad saddex ciidan oo isla hubaysan oo wada gaan carrier with their commander iyo madaxdii xukuumadda ayaa xamar ku wada sugan amisom oo meel ah oo dana kala duwan leh shabaabkiyo meel ah oo dana kala duwan leh iyo ciidamo baahan oo Soomaaliyeed oo dana kale iyagana wax daryeel iyo wax dhaqaale aysan jirin yana been dadka loo sheegi masaajid kama wada hadlayna marka aan leeyahay miisaan ka hadlayna aniga iyo boqorka waxaan badbaadinayna dadka masaakiinta noomaadikada oo mas'uuliyadooda iyo aqligooda iyo cilmigooda Ilaahay la saaray shabeelle sidaasaan leeyahay dadana doodaha meesha ka dhacayaan ama biluxdooda dambe tahay ayna garanayeen dibta baraadiya noogu yeerin oo soo fadhiisin hadda dawladda ina ku
hadda shaqaynaa oo xidxidana wuu la joogaay ha ka doonto wuxuu ka rab laakiin shacabka yowna marin hamaabin taasaan leeyahay aniga waa sida waa tahay mawduuca mar kale waa codsanaynaa inaad nala dhowrtaan martida barnaamijka ku jira dhegeystayaasha ayaan iyaguna ra'yigooda iyo aragtidooda ku aadan howlgalka xasilinta aan ka eegi doonaa ugaas maxamed weli haye annagoo dhegeystayaasha fursad siin doona anigu waxaan dhihi lahaa meesha furta aaday anigu ma aadahayo khaliif mawduuca mar kasta waxaa fiican dadku markii ay wax ka wada hadlayaan garta iyo dooda iyo waa isku mid haddii gabar la doonahayo inaad geel u heesto looma baahno haddii geel loo heesayana lama rabo inaad muxuu ahaa barnaamij dagaal ka gabayda lama rabo waxaanu ka hadlaynay amniga magaalada muqdisho ahaa waxaan leeyahay barnaamijkaa in lagu sinaado waxaa ku jirtaa mas-uuliyadda iyo muxuu ahaa raganimaduba waxay ku jirtaa waxaa laga wada hadlaya in lagu sinaado midda kale oon rabaa inaan uga jawaabo khaliif waxay tahay warniyow anigu meesha aad u rafanayso haddii ay dhabkaa tahay ood rabto dalkan wanaag aad u rabto way kaa muuqan oo soomaalidu way iswada taqaanaa kolley maantana waa rag ku garanayaa kula jooga ilaahay baana xaalka og siduu yahay anigu federaal lama aaminsani dastuurkana dastuur wax la yidhaahana ma aaminsan waxna ma soo dhisin oo ninka wax soo dhisay oo odayaasha soo dhisay nimanka xildhibaanada amiihi laakiin waxaan diidayaa meel aanaan hadda u socon oo soomaalidu waxay tidhaahdaa arrin hal geed leh laba geed yaysan kugu dilin barnaamij aan annaga hadda noo oolin oo aan miiska naloo soo saarin inaan ka wada doodno waa arrin qalada halka keliya oo meesha yaallay waxaye oo aan eraygiina ka fahmi karaaye waxa kale laga tago waxa weeye war shirka dawladda ha la ilaaliyo waa wax la garan karaa laakiin wax kaloon idinku raacsanayo ma jiro waa nin baa wuxuu leeyahay aniga muxuu ahaa xagga miyi waan tixgelinaynaa laakiin gabar dhul xaaqaysa baa la bedelay baa hadda waxaa lahaa boqorku lahaa gabar dhul xaaqaysaa la bedelay waa arrimo kale oo ayaga naftoodu culayskooda iyo barnaamijkooda annaga gabar dhul xaaqaysa kamaana hadlaynin muxuu ahaa qolo kaleo meel ku socotana kamaana hadlaynin waxaanu ka hadlaynay barnaamij la yidhaahdo xasilinta magaalada muqdishoan ka hadlaynay marka geedo kale in gacanta lala laaciyo meel kale qofkii asaga muxuu ahaa inkastoo loo baaqo loo sheego barwaaqo qof nin bay maali bugtaa ama qof bay maali bugtaa meeshii qofku xanuunaysa asagaa gacanta gelinaya soomaaliduna waxay tidhaahdaa ninkii gacmihiisa ursaday wuxuu ka ursaday asagaa garanaya anigu barnaamijkaa kuma jiro waxaan ka hadlayaa waxaa weeye garashadayda iyo caqligayguna wuu sheegayaa muxuu ahaa dhibka hadda maanta taagan qolada hadda maanta gacanta ku haysa oo dadkaan matelaysa yaan lasoo dooranin annaga waxaan ognahay baarlamaanka iyo barnaamijkan iyo xaalkiisa waan ognahay ka hadli mayno waa barnaamij baarlamaan soomaaliyeed waa barnaamij halkaa fadhiya waa golo sare oo sanadkii oo soomaaliyeed oo halkaa fadhiya khaliifna waxba kama qaadi karo maxamed welina kama qaadi karo ninka la yidhaahdo muxuu ahaa boqorkuna waxba kama qaadi karo ummadda soomaaliyeed buu barnaamijkeedu u yaallaa oon ka mid nahay annagu marka inaan xagxaganana sax maaha barnaamijkeediina nooma yaallo waxaan ka hadlayaa waxaa weeye barnaamijka aan ku soo ururino war nimankaani fursad bay u baahan yihiin fursad aan siino hadday xun yihiin iyo hadday fiican yihiin ba annagayna matelayaan wixii talo ahoo lagu kaalmayn karana aniga waxaan qabaa dadka xillisaan loola hadli karaa jira laakiin waa goorma waa markii aan tijaabino dawladaha ka soo horreeyey dawladihii hore fursad bay qaadan jireen dawladdan fursaddeeda inaan siino aniga waan ku talinayaa hadday suurto geli weydo oo sidaan rabnay ay u shaqayn weydo oo amnigii muqdishoa la joogaayo amnigii bil iyo 2 bilood aan siino asbuuc bay shaqaynayaan maxaa u dhihilaadihiin haddii aad run sheegaysaan ood meel aydaan u socon qofku shaqada markuu bilaabay inuu xun yahay iyo inuu fiican yahay muddaa lagu kala ogaan karaa muddadii baan siinaynaa waxaan baa lagala talinayaa war waa wax caqliga iyo sharciguba ogol yahay laakiin meelahan hulaamahoo gacanta la gelinayo anu waxaan u isleeyahay waa meelihii hore soomaaliya laga qaniinay ee yaana laga qaniinin ee nimankaan fursad ah siino ciidanka howlgalahaya wixii talo lagu biirin karana ha lagu biiriyo saraakiishooda waa taqaanaan idinkaa saraakiila saad sheegaysaan u taga oo ku biiriya caqliguyuuna idin dabamarin wixii halkaan laga sheegi karana wax kasta meeshaan lagama sheegi kare oo talo guudana ka gudbiya wixii talo gaarana ayaga u tago wax u sheega laakiin haamahan gacanta la gelinayo budkaan lala dhacayo xaska
waxaan qabaa anigu waa wixii hore waxna ku iman mahayaan niman yahow wixii naga hallaabay qaabkii nooga hallaabeen haddii la barto sidii loo xallin lahaa ha la barto wax badan baa naga soo hallaabay laga soo bilaabay cabdiqaasin ilaa maanta waan isdaba ordaynaa nin kastana wuu hadli jinni baa ka wada dhaxadlaya dadka waxaan isleeyahay jinniga intii layska naaro oo shaydaanka layska naaro oo faatixada la akhristo albaqre la akhristo si degan oo caqliga iyo sharciga iyo garashada bini aadamka iyo wanaaggu uu ogol yahay ninkii wax soo kordhin karo ummadda ku kordhin karow waa lagaaga fadhiyaa waali waan soo marnay isderder waan soo marnay fuclo waan soo marnay orod waan soo marnay jiiragalis waan soo marnay dangooniya waan soo marnay war walaalayaalow anigu waxaan leeyahay qaabka hadda loo hadlayaa qaab saxa maaha qaab degan oo ummaddu ay garan karto oo faa'iido leh oo xal geeni kara ha loo hadlo war nimaan loo dirin cirka nimaan loo dirin baa iska hadlay annaga cirkaa laga hadla nalama dhihin waxaa dhulkaa laga hadlana nalama dhihin waxaa la yidhi magaalada muqdisho iyo deegaankeeda sidii loo xasilin lahaa ka hadlaya ciidamada hadda gacanta ku haya anigu waxaan kusoo ururinayaa ciidamadaas fursad ha la siiyo fursadoodaasanu 2 bilooda bil fursada 45 beri 90 beri war fursad ha la bixiyo fursaddaa kadib baan wax ka dhahayna haddii ilaahay yidhaahdee waa tahay waa kugu soo noqonayaa ugaas maxamed weli saraakiil kale oo iyaguna barnaamijka kusoo biri ayaa jira waan siin doonaa balse markaan qadar yar kunool yahay in la dawlawa jib ay tahay umiyahuna kunool yahay in la dawlawa jib ay tahay sida wala ogsoonnahay maxaan u dhigaa niwaynahay
tahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka maxaa ka runa wixii la sheegay markan waxaa nagu soo biiray corneel cabdiwahaab cismaan aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya corneel waana maqashaa waa tahay hore u gal barnaamijka aragtidaada ku aadan arrintan xasilinta amniga caasimadda muqdisho looga dhawaaqay islamarkaana bilowday oo howlgalka bilowgiiska ama inta hordhaca ah ee howlgalkaasi lagu soo qabtay hubka oo dhowaan dawladdu ay soo bandhigtay maasha allah marka ugu horeyso waad salaamantihiin bahda shabeelle iyo rag galoo barnaamijka ka qayb gelayo run ahaantii xasilinta amniga magaalada muqdisho qaabka lagu xasilinayo madaxda qaranka soomaaliyeed si wacan oo in muddo aan anigu aan ku haminaya iyo horta u bilaabeen haddee waxa weeye wuxuuna markay bilow yihiin waxaa fiican in dhamaystirtooda ama dhexdhexaadkooda markay tagaan laga warsugo run ahaantii waa wax aada u wanaagsan qorshahaas waxaa ku jira in yani muxuu ahaa askartan maalayacniga magaalada u socoto garabkooda storeka u ah ee aanan lahayn store ama qoryahooda iska wato in la xadido tan kale waxaa yani muxuu ahaa aada iyo aada u wanaagsaneed marka aan aniga hadda muqdisho aan arko madaxda hubka tirada badan iska wadato ee aanan la ogeyn meel ay ka diiwaan gasho yihiin waxaa kaloo muhiima in maanta 17 degmo ee gobolka banaadir qorshaha yani la ogyahay ciidamo la hubo la tiradooda iyo waxa ay qabtaan ay ka howlgalayaan marka qorshahaas waa qorshe aada u wanaagsan keliya waxaa un muxuu ahaa muhiim ah in dadka reer muqdisho iyo madaxda iyo saraakiisha iyo siyaasiyiintu ay si wacan iskula shaqeeyaan markaana muxuu ahaa amniga muxuu ahaa si wada jira loo wada sugo haddii aysan muxuu ahaa madaxdu ama saraakiishu aysan isla shaqaynin hadee waxa weye amni ma sugaayo waxaasina waxaa kow ka ah muxuu ahaa amnigu ku sugmaya in shacabka marka ugu horeyso ay si wada jir ay ula shaqeeyaan hadda waa qorshihii maalin dhexdaas hadda hugtii lagu soo qabtay xaafadaha degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho ay soo bandhigtay muxuu ahaa xukuumadda wallahi waa wax aada iyo aada muxuu ahaa loogu baahnaa waxaanan aaminsanahay intaa in ka badanna hadda haddii ay horsii socotona waa lasoo qabanayaa muqdishona waxaa la arkayaa ninka madaxda ee maanta la dhahay 4 staff ha wato isagoo gaarigiisa keligiisa wato un baa la arkayaa haddii ay madaxda u hoggaansanaato go-aanka madaxda qaranka ay soo gudisay haddii soomaaliduna waxaan leeyahay dhaliil wax ma tartee haddee madaxdeena waa ay cusub tahay saaxada hadda ay soo fuuleen aan ka warsugno xilli la dhaliilo ama xilli muxuu ahaa wax laga sheega lama gaarin marka aan sugna ayaan leeyahay ma garat waa tahay aan siiyo engineer khaliif idris engineer khaliif idris adigoo soo koobaya ugu dambeyn maxaad ku talinaysaa oo in lagu derdergeliyo howlgalka xasilinta caasimadda muqdisho aada is leedahay halow admiral engineer khaliif idris halow waa tahay engineer khaliif inuusan namaqlayn ayaan filayaa boqor nuur ayaan siinayaa boqor nuur sidee loo derdergelin karaa howlgalkaasi xasilinta marka laga soo tago aragtidaadii hore ee ku aadan in saraakiishii hore aan la howlgelin oo aan talooyinkooda la siin maxaa kale oo aad is leedahay ammaanka waa lagu xaqiijin karaa waa loogu guulaysan karaa adeer waxaa lagu xaqiijin karaa waxa weeye kan caseeyaha ah iyo hooyada sheekayda iyo baalka ninka madaxweynaha inay isku xirmaan oo sirtu ay ka wada dhexaydo oo ummadda la garabsado oo waxa weeye dadka xukunka la baahiyo oo shacabka la dhexgeliyo oo shacabka lagu yeesho dad maaragtay sirta soo ururiya oo meesha lagu duulayo soo calaameeya maana haddii la yidhaahdo tignikan magaalada la dhex yaacayna wax soo ururaya ma jiraan waxaasoo dhan muhiim u ah in sirtu qarsoonaato canuga u yar iyo canuga iyo shaksiga u weyna sirta la gaarsiiyo ciidan laga dhigo la yidhahdo waryaada dalkiina u istaago yani hubka ka caruuriya intaa keliya loo baahay wax kaloo loo baahay waa tahay ugaas maxamed weli haye adigu maxaad is leedahay oo lagu derdergelin karaa howlgalkaas adeer alla ku barakeeyo waxaan leeyahay anigu soomaalida inteeda badan ninkaan hadda boornuur intuu hadda uu sheegay oo u dambeysay waxaan isleeyahay war sirtan la qariyo martida waan ka codsanaynaa ku jirta qadka in buuqa ay ka fogaadaan si maqalka ugu hagaago hadda wixii waa laga dhigaa saddex meesha waxba kama maqle hore u soco ugaas waxaan
tahay intaa uu sheegay ninka la yidhaahdo ninkii hadda u dambeeyey boqor nuur waa arrin saxa waxa uun loo baahan yahayna waxa weeye aniga aragtidayda soomaalida inta badan waxaa laleeyahay garasho aamina iyo gacan aamina iyo cilmi aamina iyo dad muxuu ahaa aaminsan shaqada ay ummadda u qabanayaa laleeyahay waxaan qabaa ummadda waa iska bilow waxaan muddo dheer mid soo diisanaysay nimankaani waxay soo sheegeen inay wax bedelahayaan waxaan qabaa in arrintaa la sameeyo waxaana ku badan soomaalida baadida nin baa kula dayday oo daalla kaa badan oo aan doonaynin inaad hesho daayin abidka qof kula socda oo meel kale u shaqaynayaa badan marka in laga taxadaro oo si wada jira loo shaqeeyo oo qofkii shaqadiisu ay hagaagi weydo meesha laga saaro kormeer adigu inuu jiro oo dembi qof ku gala iyo qof la helo baa loo baahan yahay waana bilow waxaani oo berri iyo beri dambe iyo midda ficilka midna ma dhammaanaya anigu intaasaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeedna oo madaxweynuhu ugu horreeyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa waxaan u dardaarmi lahaa si wanaagsan oo hufan oo ilaahay cabsidiisa ay ku jirto oo muxuu ahaa wadaniyad ku jirto oo damiir fiican oo naxaya ku jiro in ummadda loogu shaqeeyo qofku inuu ilaahay ka baqo shaqadan uu hayo inuu ilaahay uga cabsado wax ka dambeeya ma jiro qofku ilaahay ka baqo oo cabsida ilaahay uga baqo dalkaan wax aan ka ahayn garsoorkiisa shaqada islaamka oo wax looga qaban kara ma jiraan garsoorkii waxaa ka taagan 6 sano 7 sanaan galnay baa la isku dhegan yahay guryihii oo dhan baa la isku haystaa dhulkii baa la isku haystaa muxuu ahaa hoolihii oo dhan baa la isku haystaa waa la kala duhilayahay kitaabka ilaahay baa kala saaraya oo saacado yar ku kala saaraya oo maalmo yar ku kala saaraya kitaabka ilaahay in loo noqdo oo qadlaha laga dhigo muxuu ahaa kitaabka ilaahay lagu xukumo na waan ku talinayaa laga bilaabo madaxweynaha ruqada aan usoo jeedinayo iyo shacabka soomaaliyeed dhammaantood anigu intaasaan kusoo gabagabayn lahaa aad baan u mahadsantihiin waanan ka cudur daaranayaa wixii khaladaadoo iga dhacay naftayda iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii saxana xagga ilaahay bay ka ahaadeen haddii lay fasaxana waxaa weeye jamciin ay hayo waata aad baad umahadsantaha ugaas maxamed weli waa fasaxan tahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada waxaan siinayaa corneel cabdiwahaab cismaan aadan corneele maxaad ku biirinaysaa oo howlgalkaasi uu u noqon karaa mid miro dhal ah oo ay ku xasilaan dadka degan caasimadda muqdisho si tallaabooyin caynkaas oo kalena ay dawladdu ugu sii gudubto deegaanada kale ee dalka halow corneel cabdiwahaab corneel cabdiwahaab mii maqashaa waa tahay injineer khaliif idris ayaan siinayaa isaguna injineer khaliif haye mii maqashaa halow injineer khaliif waa tahay corneel cabdiwahaab ayaan ku laabanayaa corneel cabdiwahaab mii maqashaa ha waa ku maqlaa haye hore u gal maxaad aragtiya ku biirinaysaa ugu dambeyn lagu xasilin karaa caasimadda muqdisho waxaa aragtiyoon ku biirinayaa marka ugu horeyso ciidanka xasilinta amniga magaalada muqdisho kow marka ugu horeyso waa inay tar iyaga ay isku kalsoonaadaan tan xigtana ay shacabku ay kasbadaan waxaan leeyahay marka ugu horeyso wax yani muxuu ahaa shaqadu waxay ku socon kartaa ama yani ay ku hagaagi kartaa shacabkay u tegayaan amnigooda sugayaan inay yani muxuu ahaa attention siiyaan oo xushmad siiyaan aysan naqanin sidii horay u dhacday ciidamada qaar oo yani muxuu ahaa dhibaateyn iyo muxuu ahaa iyo argagax shacabku galayo howsha amniga ayagu hooshooda amniga wata in shacabka marka ama guryaha ama baabuurta ay baarayaan si degan ula hadlaan shacabka waxaad arkaysaa nin iska force dalkan muddo dhowr iyo 20 sano ayuu dhibaato ku jiro uma bisla dawladnimada in marka ugu horeysa iyaga ay shacabka ay baraan dawladnimada ciidanka howlgalaya ee amniga sugayana waa in ay yihiin ciidan attentiona muxuu ahaa yani og mas-uuliyad inay qaadeen ayna ka dhidhiyaan hadafkooda ahaa inay amniga xasiliyaan tan xigta hal mid aan madaxda dawladda aan u sheegaya oon ku biirinaya waxaan leeyahay haddii ay jirto qorshe 17 degmo ee gobolka banaadir waxaa habboon in la og yahay degmo walbo ciidanka ka howlgalayo guddoomiyihii degmada inuu og yahay waaxyaha ay xaafadiisa ka gooban tahay uuna og yahay wax walba ciidanka iyo inta ilaalaa ay joogto og yahay
xildhibaanada degan degmooyinka gobolka banaadirna ciidamadooda la tiro koobo nin walbana askarigii lagu ogyahay isaga loogu imaado intaas ayaan ku biiranaya ma garan asha ayaan siin doonaa martida aad baan u mahad celinaynaa barnaamijka nagala qayb galay ra'yigooda iyo dareenka ay ka qabaan olgalka xasilinta muqdisho waxaan iminka wixii ka dambeeyaa fursadda siin doonaa dhegaystayaasha oo Shabeelle Media Network nagala soo qaybgelaya barnaamijka oo ra'yigooda kasoo dhiibanaya bogga Facebookga waa Shabeelle Media Network ayaad kasoo dhiiban kartaan fikirkiina 488 ayaad fariin ahaan noogu soo diri kartaan sidoo kale ra'yigiina dadka gudaha dalka ku sugan waxaa kaloo ay toos nooga soo wici karaan dhegaystayaasheena meel waliba oo ay gudaha dalka iyo dibaddiisaba ka joogaan lambarada kale ah 85 15 91 ama 85 15 92 qofka ugu horeeya halow assalaamu calaykum wacalaykum assalaam codkaad sare u irqaad walaal magacaada walaal maxamed jamaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka martida noogu ah waxaa si gaar ah u salaamayaa sarkaal cabdiwahaab oo haatan ugu dambeeyey iyo ugaas maxamed cabdiwahaab ugaas maxamed weli oo barnaamijka meesha aan rabnay ka taataabanaya oo maanta dhan ka hadlayey oo barnaamijkooda aad niyadda noogu dhisay waana sida loo baahan yahay mar walba in shacabka loo dhiirigeliyo waxaa kaloo micnaha si gaar ah u hadlaya anoo maanta dhan barnaamijka dhegaysanayey ugaas nuux miyaa la dhahayey shacabka iyo iskuma xirna ciidanka taas horta waa ku beeninayaa oo waa arkaysaa shacabkii iyo rabitaankii mar walba markay madaxda hadlayaan waxay ku hadlayaan magaca shacabka waxaan aad ugu mahad celinayaa mar walba mar labaad iyo mar saddexaad ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan saraakiisha ciidanka waxa anaga u baahan nahay waa amni haddaan arday nahay haddaan nahay saxafiyiin waxa dhan wax walba waxa u baahan nahay amniga waaye ilaahay subxaana watacaala waxaa ka baryaa inuu amniga noo siyaadiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegeystaha xiga halow asalaamu calaykum radio shabeelle wacalaykum assalaam walaal soo dhawaaw magacaada walaal waan ku dhawahay waa nin la yidhaha axmed saadaq oo ku nool degmada kaaraan ma fahamta axmed saadaq haye ra'yigaada ku aadan xasilinta amniga muqdisho raali aragti inta waa qabaa laakiin su-aalan weyn waa la jiraa ma fahamta waa tahay inkastoo martida aysan noogu jirin laba su-aalana waa qabaa saaxib waxaan kala weydiinaa ninka la yidhaha sargaalka iyo ninka la yidhaha khaliif haye marka khaliif waxaan weydiinaya ninka la yidhahdo dhowr jeer waxaan ku celcelishay inay jiraan niman la yidhaha soomaali kristaan ah soomaali kristaanka mawduuca waxa ka baxsan waxa mawduuca ka baxsan ma doonayno annagu ka hadal howlgalka xasilinta waa tahay qofka xiga halow magacaada walaal waa muuse xasan darkiinle walaalkay muuse haye barnaamijka hore u gal waa la socdaa jimcaale martiday dhammaan waa salaamaya halka fadhiso maaragtay maanta ka qayb gelis dood jimca horta abna haddii la sheego wax wanaagsan oo bulshadana anfacayo maaragtay danaha guudna maaragtay ku wanaagsan laakiin sida hadda waa u socdaan odayaashii iyo maaragtay khaliif idris ba oo sheegay waxaad moodaa xoogaa in maaragtay ay jirto khibrad yaro waxaan codsanaynaa marka haddaan nahay bahaweynta magaalada muqdisho ama dalka soomaaliya guud ahaan in bahasha lagu daro bahasha sir lagu daro oo lista ciidanka aan banaanka lasoo dhigin waa tahay aad baad umahadsan tahay taas oo noqon karto inay maaragtay wix walba ay sidii la raba ay ku socon waayaan marka waana salaamaya ugaas maxamed weli saaxiibkii aadan u salaama insha allah waana ku salaama waa mahadsan tahay qofka xiga halow anaa kaa celinaysa halow halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam magacaada walaal saaxib waa mukhtaar maxamed cali oo jooga degmada daynel mukhtaar soo dhawaaw ra'yigaada niyahow ra'yigeyga waxa waaye waa dhegeysanaye odayaasha meesha ka doodaya iyo ragga taliyaashii hore ciidamada soomaaliya ka tirsanaa waxaan leeyahay niyahow horta soomaalidu hadda sanadihii dambe waxay baratayba in waxa la yidhaahdo qofkiiba markii shaqo uu inuu galo uu diyaar u yahay isla markiiba in dhaliilo iyo ammaan deel loo soo jeediyo marka waxaan leeyahay in fursad la siiyo maxaan ku yidhahdaa dawladda cusub tan kalena dadkan hadda aad arkaysid oo maaragtay dawladda dhaliilada usoo jeedinayo waa dad jecel in lagu jiro xaalkii lagu soo jiro 25 sano xaalkii lagu jiro in lagu sii jiro marka waana waxa ay ka barteen idaacadda Shabeelle taas oo dhaqan ka dhigatay inay mucaarado dawladaha soo jiray iyo kuwa hadda iyo tan hadda jirta marka waxaan leenahay dariiqa idinka u furteen shacabku way
dhaqankaas noocaas oo kale ha joojiso Shabeelle. qofka xiga halow. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. magacaada walaal? walaal marinaa la dhahaa, waxaan kasoo hadlaa degmada dayn. waa taa maryan, soo dhawaaw ra'yigaada ku aadan howlgalka xasilinta muqdisho. horta waa ku dhawaay, waana mahadsantihiin haddii aad tihiin idaacadda Shabeelle. codkaadaa nagu gaaban maryan, sare u yara qaad. waa idin maqlaa idaacadda Shabeelle, aad iyo aad ayaa umahadsantihiin. barnaamijyada qabatiinna waa barnaamijyo fiican. waxaan aad ugu mahad celinayaa ugaas maxamed weli sida fiican oo u hadlay, iyo korneylkii ku xigay. aad iyo aad ra'yi fiicanay ka hadleen. welibana dhaliilihii wadaadka kale khaliif oo sheegaya injineerka aad ay u qaldan yihiin. waxaa fiican markii aad talo aad dhiibayso ama aad meediya ka hadlaysid inaad talo wanaagsan dhiibtid maahane haddii aan dawlad kasta dhaliil aan kala soo horjeesano wax fiican maaha. waa tahay qofka xiga halow. asalaamu calaykum Shabeelle. wacalaykum asalaam walaal, soo dhawaaw. magacaada? magacaygu waa maxamed xasan sheekh aamin. maxamed haye, ra'yigaada ku aadan barnaamijka. waayo barnaamijka waa barnaamij oo si khaasa noo taabanaya anaga ma garan. haye. maadaama laga hadlayo amniga. halo. waa ku maqlaa, hore u gal. annaga waxaan kamid ahay darawaliinta DL-ka ku wado magaalada muqdisho. codkaada sare u yara qaad. haye. waxaan kamid ahay darawaliinta ku wado magaalada muqdisho, ma garatay. haye. gariga DL-ka marka waxaa annaga aadan u dhib qabna haddaan nahay gaadiidleyda DL-ka darawaliinta wado. waxaana ka tabanaynaa oo xagga amni ahaan ciidanka dawladda, ma garatay. haye. marka haddii dawladdan cusub waxaan ka codsanaynaa akhlaaqiyaadka ciidanka ay nagu sameeyaan. waxaa kamid a rarkii inta qori nagu qabtaan oo xabado nagu ridaan, rarka naga daadiyaan, ay naliif garaacaan, ay si xadgudub yani aan bini-aadamnimada aanan kamid ahayn ay nagu sameeyaan. waa garataan umalayna. marka arrintaas waxa laga qabto aad is leedahay xasilintana qayb ayay ka noqonaysaa. ha baryahan waxaan hambalyana usoo jeedinayaa ninka hadda lagu wareejiyey ii sheegay ciidanka wadooyinka oo taraafikada oo maasha allah aan leenahay isbedel saxoobo waxbaan dareemayna hadda. ninka saraakiisha meesha fadhiyan waxaan leenahay ciidamada aan taraafikada ahayn, aan booliiska ahayn, oo dharka caadiga iska wato oo maalin walba annagana lif garaaco oo lacagta baada naga qaado. adoo qof dejina baakin taagana waxaa lagu leeyahay qaladaa taagan tahay, qaladkii laguguma saxayo lacag 20 kuna laga qaada, haddaad didna liifaaba lagugu dhufana, ma garan. waa tahay aad baan kaa mahad celinaynaa ra'yigaada. qofka xiga halow. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam. magacaada walaal? magacayga waa cabdixakiin waayo oo jooga hodan, degmada hodan. cabdixakiin haye. marka horta waa kugu mahad celinayaa maxamed jimcaale, sidoo kale waxaan mahad celinayaa dadkii wadaaga dooda wadaaga aad ugu mahad celinayaa. haye codkaa sare u yara qaad. haye ra'yigaada ku aadan magacii degmada adigoo noo sheegay. magacayga cabdixakiin oo jooga degmada hodan. cabdixakiin hore u gal. runtii horta soomaalida inta badan horta waa diisan wixii la qabtaa diisan ay ka turjumin oo maalin walba daliil iska sheegaan ama ciddi hoosteeda wax laga fiiriyo horta xal ma imaanayo. haye. sida aan ognahay dawladdan ama xukuumadda iyo taliyaasha la magacaabo runtii dadaal badan ay wadaan. haye. waxaa wax lagu farxaa in la yidhaahdo maanta hal tiro kooba ciidanka magaalada muqdisho joogo. waxaa wax lagu farxaa in maanta la yidhaahdo mas-uul kasta ama xukuumadda ku jira ama xildhibaan ha ahaadee afar askari si badan looma ogolo. waxaa xusud mudan in la yidhaahdo howlgal ballaaran hala sameeyo oo lagu soo qabanayo qolooyinka nabadiidka ah howlka ay wataan lagu soo qabanayo. haye. marka rajo wanaagsan ayaa muuqato, laakiin hadda waxaan sooma hal maal lagu dhisan lahaa dawladdan waxaa ukeena 4 bilood ma dhimo. saasay tahay waxay qabatay runtii wax la dhihi karo waa hal sano wax lagu qabto. rajo wanaagsan aa muuqato, isdhexgal mas-uuliyiinta iyo shacabkaa muuqdo, waxqabadaa muuqdo, dawladda inay feejigintaa muuqdo. waxaa ogtahay qaraxyada badnaa oo dhici jiray oo isbuuc isbuuc dhici jiray waxaa moodaa marmar macnaha inay dhacaan qofka naftiisa horaa lama celi karo, laakiin inta mar la fashilay, inta wax dhacaayo inta bar oo wax la fashilaya ka badan. marka wanaaggas markaa qarar kabacdi wanaag noo imaan karaa. marka waxaa soo dhaweynaya hadalka oo korneelka cabdiwahaab iyo sidoo kale ugaaska hadallada ay soo jireen dhiirigelinta ay wadeen oo ahaa in dawladdan la siiyo fursad. waa tahay dhegeystaha kale ayaan siinayaa, hal iyo laba ayaan siinaya dhegeystayaasha waktigoona kulaalaya. halow. halo radio aad iyo aad umahadsantiin. marka hore magacayga waa cabdiqaadir axmed macalin oo joogo madaxweynaha madaxweynaha kaasatan degmada raaliya iska gaabi walaal adigoo raaliya.
haddii aan u gudagalo barnaamijka runtii aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ogaaska iyo korneelka aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya horta waa sax in laga qayb qaato amniga magaalada muqdisho waa mid aad iyo aad u fiican waxaan dhihi lahaa laakiin dadka oo mucaaradnimadooda ka daayaan mucaaradnimada waayo waa 4 bilood iyo 3 bilood meelaas ay jirtaa dawladda waa tahay qofka ugu dambeeya halow السلام عليكم. وعليكم السلام magacaada walaal walaal magacaygu waa Iba Cali Cabdisalaan. Iba ayaalkee joogtaa walaal waxaan ku suganahay degmada Dalkiiley. haye hore u gal raygaada barnaamijka walaal waxaan dhihi lahaa waa taageersanahay dawladda laakiin hal fikrad ayaan ku biirin lahaa fikradaas oo ah ciidanka ama shacabka maadaama aan nahay wallahi magaalada inaan soo aadna daata macno cabsi iyo qalqal ayaan ku soo baxnaa in ciidanka tayo fiican ay tayoogaan xag mushaariya xag hay'ado howlgabkoodaba shacabkana ay kasbadaan laabtooda oo shacabka aysan ka argagixin maalin labaad gaari aan saarnaa xabad baa lagu furay ayagoo jidka ku furanayo oo jidka inay maraan rabaan 2 wiil ayaa ku dhaawacantay walaalo ciidanka waxaan jeclaan lahaa in oo maxay hay'ado daraasaad dib loogu celsho waa tahay marka howlgalkan maxaad talo iyo tusaale aad ku biirinaysaa lagu dardargelin karaa howlgalka waxaa lagu dardargelin karaa in ciidanka ay shacabka kasbadaan shacabkii ciidankana wada shaqeyn zaa'ida ay ka dhexayso dawladdana laga warsugo dawladdeena khayr allaha siiyo in laga warsugo ciidankana ay shacabka kasbadaan laabtooda waa tahay oo ciidan tayada ay noqdaan aad baad u mahadsan tahay qofka kale halow وعليكم السلام magacaada walaal magacaygu waa Jaxsan Maxamed Daawud haye codkaas soo yar qaadalkee joogtaa aad waa degmada Wasnawad hore u gal raayigaada ku aadan barnaamijka ra'yi waxa waaye in ciidanka cusub hadda la soo saaray ahaan ciidan balwadaysan oo balwada ma ay ahaatada inay ka dib qabaan markaas amniga la xaqiijin karaa amniga waxa xaqiijin karaa askari wanaagsan amniga ma xaqiijin karaa askari balwada taasna waxay dhici kartaa in la helo askar wanaagsan oo amniga wax ka qaban karta tan kale markii waxay ka hadlayeen ammaanka qiimihiisa kala duwan ammaanka kaliya maaha caasimada muqdisho ammaankana waa in lagu daro Soomaaliya dhan in amniga la xaqiijiyaa askari cawada dhan soo jeediya sidii ma qaban karo wixii soo galay meesha ma waayo karo askari waa inuu yahay askari wanaagsan oo shacabka dhaqmi karo shacabka soo jiidan karo taasoo ku daraya Soomaaliya meesha aad baad mahadsan tahay barnaamijka gunaanadkiisii ayaan soo gaarnay waxaan u mahadcelinaynaa oo barnaamijka maanta nagala qayb galay admiral injineer khaliif idriis cusmaan oo saraakiishii hore ee xogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaa boqor nuur boqor maxamuud afrax oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed iyo ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur oo isna salaadiinta ugu caansan Soomaaliya qayb ka ah iyo korneel cabdiwahaab cusmaan aadan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay raayigooda Shabeelle Media Network iyo fariinta gaaban 488 noogu soo diray oo inta badan aan ka gaari weynay iyo kuwa qadka toos noogala soo qayb galay inta dhammaan hawada nagala socotay inta waqtiga aan u saamixin dhammaan anigoo maxamed jimcaale ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay farsamada waxaa ka qaabeynayay maxamuud faarax sidow logic isku xirka guudna waxa waa injineer Mustafa Cabdi Abshir tan iyo intaan dib u kulmayno barnaamij ka lamid ah waxaan ka tageynaa sidaas iyo nabad geel